istansa uu qoray waxa uu ku saabsan yahay gudniinka fircooniga ah wuxuu ku qoran yahay si afka ingiriisiga wariyaha BBC-da Cabdirasaaq Catoosh oo dhawaan Khartoum kula kulmay ayaa Maxamed Cabdulqaadir Istansa waxa uu uga waramay buugisan u dambeeyay wallahi buuga haddaan ku sheega buuga waa buug novel ah waa buug macnaha sheeko xariir waxa ay Soomaalidu u yaqaanaan buugan oo aan ka qoray dhibaatada gudniinka fircooniga ah uu ku hayo gabdhaha Soomaaliyeed waa buug macnihii sheeko aan anigu abuuray oo ku salaysan dhibaatadan ayada ah waxaan ku faaqiday aan ku falanqeynay ama guud ahaanba uu ku hayo marka inuu daawo u noqdo oo aragtidaydaasi ban bal wax iga sheeg marka sheeko xariirkaas iyo buuga ku qoran buuga sheekada horta buuga magaciisa waxa la yiraahdaa The Beaming Blood oo la macno ah dhiigii warwaray sheekada waxay ka bilaabanaysaa gabar yar oo gabadha qalanjada buuga aan ku jilaaya qofka macnaha jilaaga ah sheekada ugu weyn waa gabar yar oo haajire la yiraahdo waxay ku dhalatay magaalada Muqdisho kadib dagaaladii sokeeye ayay soo qaxday Kenya timid xariiqa qaxootiga wax ku baratay kadib ayadoo halkaasi qaxootinimo ku joogto ay hooyadeed waxay go'aansatay xilligii ay dugsiga dhexe dhiganaysay inay gabadha guddo marka sida aad ogtahay waxa jiro marka gabdhaha Soomaaliya gudniinka lagu sameeyo islaamu waaweyn oo Soomaali ah oo aan tababarneen oo qalab casri ah haysanin ayaa gabdhaha gudo marka gabadhaas yarta dhibaatadii ka soo gaartay muxuu ahaa gudniinka lagu sameeyay iyo ayaa sabab u noqonaysa marka dambe ay weynaato inay dhowr guur ku fashilanta qiyaastii 3-4 guur bay ku fashilantay kadibna gabadhu oo yacni la furayo raggii ay guursatay way kala tageen furiinkii buu horseeday laana waxa way gabadhii waxa dhibaato ay ka soo gaaraysa markii gudniinka asaga ah dhalinkii oo kala dhibaato ay ka soo gaaraysa for example markii tusaale ahaan markii gabadhii de gabar ugu baa oo la tolay oo lagu sameeyay maxaan dhihi karnaa amaliyad lagu sameeyay marka dhibaato ay galmada lafteeda kala kulmaysa taas sabab u noqotay marka kadib Muqdisho ay u laabanaysaa iyadoo ninkeedii oo Nairobi kula aroos galay oo ahaa nin dibadda ka yimid sidaan anigu sheekada u sameeyay kadibna ninkii way kala tagayaan markay Muqdisho ku laabatana dhibaatooyin badan bay la kulmaysaa for example ayadoo ku laabatay wadan burbursan dhibaato ka jirto maxaa la dhihi jiray dhibaatooyin aad u fara badan ay ka jiraan kadibna waxay go'aansanaysaa inay soo taariibto istansa waan u soo noqon doonaa gabadha aad buuga ku jilayso buugan aad u bixisay dhiigii wirwirayay maxaad haajiro ugu bixisay haajiro waxaan ugu bixiyay gabadha oo ilaa Soomaaliya ka soo tagayso Kenya imaanayso yani soo haajirtay macnaha soo sameysay waxa la yiraahdo qax ama socdaal ee ku timid ilaa Addis Ababa sheekada Khartoum bay imaanaysaa kadibna Liibiya gabadha ku geeriyoonaysa iyadoo taariib oo Yurub ku sii joogto waan gartay marka haajira geeriya u dambeysay oo sheekada buuga waa buug tragedy oo maaragtay wuxuu ku dhamaanayaa sheekada geeri gabadhi ku timid markii ninkii afraad ay guursatay maxaa kugu dhaliyay inaad gudniin fircooni ka hadasho aad atrisho uga dhigto gabar Soomaaliyeed oo haajira la yiraahdo Cabdirasaaq waxa way horta anigu waxaan ka mid ahay qorayaasha Soomaaliyeed ama Afrika ee wax qorto inaan mustaqbalkana aan doonayo inaan maartay buug badan aan qoro mar haddii sheeko la sameynayana waxa way sheekada la sameynaa waa in mowduuc muhiim ay leedahay marka waxaan u arkayay in ay dhibaatooyinka faraha badan ee bulshada Soomaaliyeed ku dhacay inay qayb ka tahay la doonayo in bulshada laga wacyigeliyo marka ma u maleynay buugan iyo qoraalkaagan iyo mu'allifnimadaadan iyo mufakkirnimadaadan inay wax ka bedelayso dhaqanka fircooniga ilaa hadda markii la dadaalana hadii dadaalada faraha badan ay isku tagaan inay wax qabad fi nihaaya ama ugu dambeynta ay keenta laga yaabaa marka waa dadaal shakhsi oo aan sameeyay oo doonaya bulshada Soomaaliyeed maanta inay ka faa'iideystaan in ka soo buugu af Ingiriis ku qoran yahay oo af Soomaali ku qornayn laakiin inta badan ee maaragtay afka asaga akhrin karto inay ka faa'iideystaan oo ay tusaale ay noqoto wax u qabato bulshada Soomaaliyeed istansa gabyana waa tahay oo de maansooyinkii murtida waad samaysaa wax murti ah ama gabay ama ku jira buugan aad u bixisay dhiigii wirwirayay wallahi laba gabay Ingiriis ah ku jiro oo gabay waxa la yiraahdaa the single kiss baa la yiraahdaa dhunkashada halka mar ahayd ee macnaheeda tahay marka waxaan leeyahay my lips dibnayga waiting for you to kiss waxay sugayaan adiga dhunkato oo jacayl baa meesha ku jira moogtahay waxaan leeyahay my kids are crying for you to mother ciyaalkeygana waxay u oynayaan in adiga hooyo u noqoto waa mustaqbalka macnaha yani ma sha Allah waa eray aad culus waan gartay waayahay su'aasha u dambaysa aan si kale u dhigo su'aasha u dambayso abwan istansa gabayada badan oo aad leedahay jirta waraysigan isaga ah waxaan jeclaan lahaa inaad gabay ku soo qatinto wallahi Cabdirasaaq oo mar hadii laga hadlayo ay tahay maxallihi jiray buugi aan ka qoray arrimaha dumarka Soomaaliyeed
waxaa jirta for example maanse aan lahaa oon leeyahay gobsanaa gabdhaha iyagu gumaystaha ma raacaan kuwa gunada qaatee heybadooda gabayana gacal kuma yidhaahdaan gacan kuma salaamaan inay geyn karaan iyo gayaan uma maleeyaan giddi way huruufaan kuwa gabay naftoodii iyo gaal u daba dhilf. aad buu mahadsan yahay maxamed cabdulqaadir daa'uud stansa oo ah qoraa gabya ah magaalada khartuum ayuu ugu warramayay cabdirasaaq catoosh oo ka waraystay buugga ka qoray gudniinka fircooniga ah halkaad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee b b c london.